in dhoweyd xaadii gabay xigmaddeedii maan tirin xaab baa iga saarnaa maantuu xiise leeyahe xakamaha aan saare xigmaddan bal dhegaysta odayaasha xayraansan xasan sheekh ka mid yahay xilka qaranna soo maray bal xogtayda u sheega bal xogtayda u sheega doorashadaad xanibteen xarigeedii la gooh xildhibaanadii gaartaa xal wanaagsan u jeexay xagga diid xaggana diid xujo meel la taagnow tan xumeeta naxaasi xal inoo noqon mayso nin kastoo ka xanaaqa ama taa ka xumaadana birig loo xajin maayo adeerow xasan sheekhow adiyo xisbigaagu danigaa idin xaraystay xaggiisa u duula xamar waa idinka dhammaatay war xilkii dowladdeenna rooblaa loo xil saaray xarigeedii hoggaankiiyo xukunkeediina qaaday isaga aan ku xurmayno waa xubintaan ku lahayni siyaasi xayraana war siyaasi xayraan oo rasaas noo xambaarsha ka ilbaxya hawiye taa waanu ka xirow xabad kuu ridi mayno xarbi kuu geli mayno xoolo naga heli maysid dowladihii aad xambaarsanayd iyo danigaa ku xaraystay u huleela xaggooda jalankeenii xumaaday xildhibaanada dootay xabadda isla dhacayo xuduntii iskaga toogtay xagguu maanta ku noolaan xabsi baana sugaya xasan baa sababteediyo xidaheeda lahaa adeerow xasan sheekhow xukun soo qaban maysi xabadna kuu ridi mayso dani baa ku xaraystay ku xisaabtan halkaasoo xaggiisaa u hole horta odayaashana taasaan leeyahay waxaa soo haray dowladda federaalka waxaa leeyahay dowloy horey baa soomaali ugu maamaada xukun jilicsan iyo gus jilicsan midna khayr ma leh aad ma rabno annagu xukun jilicsan rooblow xukun jilicsan ma rabno shooblow xukun jilicsan ma rabno waxaa kaa muuqata rooblow heedhe indha sacadna waad leeda mashiin shiikaasheedna waa ku saaraya looma baana waxaas waa inaad mashiinkii sacad la soo baxdaa waxaan u baahannahay annagu doorasho qof iyo codaan rabnaa nabad baan rabnaa soomaali nabad bay rabtaa cumar sheekh wuxuu nagu yidhi cumar khayr guddoomiyaha gobolku habeen dhoweyd doorashadu waxaa loo diiday oo loo hortaagayahay 13 xildhibaan ee loogu daray sanatarada gobolka banaadir in la laalo oo la joojiyo iyo in doorashada la joojiyo labadaasay istaagtuyo maryaan yeella hawiyowtaa xasan sheekh iyo sheekh shariif waa ka yeeleen ina farmaajana waa ka diiday rooblena waa ka diiday qorqor waa ka diiday horta ragga maanta xilka inoo haya oo shanta ah oo labada maamul goboleed macal waxaa la yidhi uurjiro hooyadiibu ku gowracan yahay raxaweyne hawiye ku gowracanta waa hawiye ilaa inagaa wax raxan weyne hawiye waa raxan weyn soo ma saddexdaa maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka iyo ra-iisul wasaaraha shanta anigu bilad geesi baan uso xidhila ma siiseen saasaan u baahannahay beesha caalamka waxaan u sheegayaa beesha caalamkoy waxaa weeye raggii uubta noo qodaa tihiin oo sida noo galay waxaan idinku taageeraynaa garab istaagga iyo dhaqaalaha iyo horumarka aada bulshada soomaaliyeed la taagantihiin waa idinka mahad celinaynaa laakiin dal xoraanuna 61 sanaanu xornimo maraynaa ma qaadanayno qooley qoorqabad biyo ku cab sida aan rabno haddaad naga rabtaan naga weydaan waa idin burburinaynaa waa ka ilbaxnay ma yeelayno walaalayaalow beesha caalamka waxaan u sheegaynaa nadaaya safiiraatiin annagaba dalalka safiirra waa noo joogaan siyaasadahoodana ma dhex galno
nadaaya safiiraatiin safiirnimadiina ku ekaada haddii kale runta ka sheego cidda wax diidan sheega waa ogtihiin cidda wax diidan calila garra caydila garra ilaa beesha caalamkay ka timi mabaana la qola lagu waagi hore ilaa xaajadan hebelna ma gardarna hebelna ma khaldana waa beesha caalamka war waxaan ay leeyihiin ma duuli kartaan ilaa aad heshiisaan may yidhaahdaan cidda heshiiska diidanaya ilaa aad heshiiso ma duuli karti war doorashadu imisay soo socotay ilaa iyo dhuusa mareeb ilaa iyo September 17 war imisay soo socotay imise jeer bay dawladdu meel ka kacday war maanu ilaahay ka cabsano 2 mitir bayna sugayeen nin kastaba aniga dhinacayga iga xiga ina farmaajada janno i geyn maayo danina cadaab i geyn maayo nimankan waxay ku talagaleen inay dawladda ka ridaan mandate-ka saan doorashaba u dhicin dabadeedna ay ku hawleelaan muqdishona ayna nabad noqon dagaal ka dhaco qoryaha la soo qaadeen la leeyahay waa isku ilaalinaynaa nin walba 100 askari soo kaxaystay waxaa lagu hubeeyey lagu wareejiyey xasan sheekh iyo sheekh shariif baa lagu wareejiyey waxaa la yidhi xamarka dagaalama nin daaroodina ku dhiman maayo nin diri ku dhiman maayo waxaa la rabaa hawiye in la isugu dhiibo war 17 degmo ee xamar yaa xukuma soo hawiye ma waxa xukuma gobolka yaa xukuma askarta joogta ayay ta haye yaa marka dagaalamaya yaa la islaynaya waa yaar isu dhiiban isu sheegnay war hawiyow siyaasi xayraana oo rasaas ku xambaarshay miyaynaan ka xoroobin ka xorooba maanta waa ka xorownay siyaasi xayraana oo rasaas loo xambaarsha ya waa ka xorownay maanta waxaan leeyahay hadalkii waa idinku badiyey odayaal badanna waa sugayaan waana xumeeyey iga raalli ahaada waxaan doonaynaa maqaamkii gobolka banaadirna dawladda waxaan ka rabnaa doorashada inayna ka harin ilaahna may 50 sano dambe dhacdo inay ka hormartaan rabnaa in lanoo dhisaan rabnaa golihii deegaanka gobolka banaadir inaanu dhisano yaanu rabnaa waxaa weeye ilmaada rayaalow soomaalinima ina deeqda nabad baa ina deeqda wadaninima ina deeqda ya qabiilnimo deeqo qaran baa ina deeqa war qarankeena aan ilaashano ninkii berri ku soo baxana aan la shaqayno doorashada loo hadda waqtigan ay ku ciyaareen waa koodi maahan kii farmaajo koodi bay ku ciyaareen xasan sheekh isma lahayn nin baa kaa qaadaya maalintii doorashada la geliyay 180 xildhibaan buu lacag ku bixiyay ya 200 iyo 200 yuu ku bixiyay waxaana lagu shiriyay oo anigu ka qayb galay odayaasha ka qayb galay aan ahaa SWL maalintaas la isma lahayn xasan sheekh nin baa ka qaadaya sir aanan idiin sheegina waa idiin sheegaya oo aan cid loo sheegin doorashadaas markay dhacaysay habeen baan anigoo aad u fakiray oo quraan badan akhristay baan intaan fadhigii ku gamaanin iyo ciidamadadan qaado madaxweynaha Soomaaliya saar hebel saarna leeyma oran subaxii baan ciidamadii la soo kala sheekh shariif baa la hor istaagay ilaahay baa iga sareeyay gabaygii aan ku saari lahaa waa diyaarsada gabalka igu dhaco waa la ii sii dayn waay subaxdii labaad baan ku soo kala sheekh shariif ilaa ninba ninka ku xiga qabyaalad baa futada iga gashay aniga laftayda markaa la been baan sheegay 3 maalmood markii qorraxdu iigu dhacday guriga sheekh shariif oo habeenkii iigu dambeysay maqribka aan ku tukaday qolku fadhiyay qolka ku xiga la ina sii dayn waay yaa iska soo tagay maalintii afraad baan aniga iyo wiil gaal jecela inta iska raacnay lambar 4 yaa jasiira iska tagnay ciidamadii la garabkan ku sitaa ciil baan bastay ah oo sheekh shariif waay anagoo sheekh cabayna farmaajo caliyara boorso u sida godho le xasaan noo agmara saalay wakaa ninka farmaajo la dhaho mana aqaani moogta ilaahay baa igaga sareeya waa weyse qabaa inta u dhawaaqay anoo farmaajo yaan ciidamadii dusha ka saarnay madaxnimadii Soomaaliya ku dhiib iga qabo caliyara 100 riyaal la siiyo yiri 100 dollar ku qadeeya inta 100 ku qadeynaan iska baxay markaasaan gabay bilaabo waa farmaajo waa nin feejigan waa fariido waa nin ficil bad anigu wixii aan wax la rabay wuxuu ahaa shariif sheekh axmed buu aniga rabitaankaygi yaa ka weyn kii ilaahay hadduu maanta farmaajo isku cabiro doorashada kii ilaahay baa ka weynaan lahay xasanba waa isku soo cabiray waa ka wareegtay kalsooni baa loo baahan yahay maxaa hawiyow kalsoonida inaga qaaday
maxaynu markaan aragnay nin daaroodaba aynu saa isugu daadinaa bawdiya dalkana annagaa iskale diintana annagaa iskale dadna innagaa ugu badan duunyana annagaa ka badan war maxaa inaga qaaday bahda ya waxaan doonayaa soomaali dadka ugu fiican baynu nahay soomaalinimada ogol lagu wada nool yahay dhulkooda lagu wada dhaqan yahay horta soomaalinimada aan ilaalino aan xiranno usalli salaati soomaali allahu akbar salaadaas ayaa idinka jabin hawiyow aad ma ii fahanteen walaalayaalow taa yeela odayaasheennan xayraankana waxaan u sheegayaa haddaad rabtaan inaad xil qabataan nin baa hadda ka hor waagii gabdhaha laysa siin jiray yaa nin gabar la siiyey odaygii gabadha dhalay baa wiilka siiyaa geel 30 loo keena wiilkii uu gabadha siiyo wuxuu yidhahdee reerku ciidan ma lehee kal dambaan kuu dhisiye reerka u ciidami wiilkii reerka u dhaami kolba meel u rar geela horweyni xagga u kaxee roobkii baa dici waayey oo abaar baa dhacday wuxuu yidhi adeer markii roob do-o yaan kuu dhisayaa dee reerkii waa aragtaa waxa haysta waa yahay buu yidhi 2 sano markuu sida ahaabaa roob da xoolihii intii soo hartay baa geeli wax ka dhaleen odaygii wuxuu u safray burco oo wuxuu yidhi bal reerkii aad isu hoysid reerkii isu dhistide reerka aradbax iyo kaba iyo bal wax u dood habeen baa wiilkii oo geeli lisaya gabadhiina la lisayso caanihii u hoorinaysa dhiisha kolba iyo naaskeeda wuxuu ka arkay dhinaca wiilkii dacartii baa ku kacdo bartiibu ku legdid gabadhii ma aamusina waa qaylida hooyadeed waa soo carartoo tibbay la dhacday wiilkii baa daqarta wiilkiina inta yaxyaxay buu iska kaca arrintii beeshii oo dhan baa maqashay odaygiina waa baqan yahay odaygii baa maalin dambe yimid arrintii baa loo sheegay beeshii buu shiriyey inta awr qalay wuxuu yidhi sodohda hal baa seegtay gabadhana hal baa seegtay wiilkana hal baa seegtay aniga sasaaka midhi seegi maayo sodohda hal baa seegto wiilka sodoh bay u tahaydo gabadheedu qabay inay aqalka isu gelisaa seegtay inantana hal baa seegto ninka kufsaday xaaraan mehe waa ninkan u meheriyey shib inay iska tiraahdaa seegtay wiilkana hal baa seegto inta badan buu soo samriyey intaan imanayo inuu dul qaataa seegtay aniga sahal iseegi maaye halkaa aqal hala igu dhisuyo markaasaa beeshii oo dhan aqalkii laga ururiyo loo dhisay hadda nimankeenan musharaxiinta doorashadu markay dhacaysay hal baa seegtay mar dhoweynna hal baa seegtay hadda mid saddexaad yay seegin annaga hawiyaasi halna seegi mayso waxaa seegtay markii ay isdooranayeen inay isugu shubaan xubnaha ugu badan ayagaa haysteen xildhibaanada inay isu kaambegareeyaan isugu shubaan oo isu wareejiyaan way seegtay hadda doorashada markii soo gaadhana inay calafkooda qaadaan oo doorashada fasaxaan oo markii xildhibaanada lasoo doorto kaambeygooda galaan oo xaniiyahooda fulaanna way seegtay maanta xisbiyaa lagu tartamayaaye inay shacabka kasbadaan yay seegin horta annaga hawiyaasi halna seegi mayso inaanu dagaal u galna siyaasi oo xayraana oo xabad u ridno carruurta iyadu ku dhimatay na seegi mayso taas mana gelayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier